ciidamadan isku dhafka ayaa loo diyaariyay qorshaha cusub ee dardargelinta xasilinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ee 3 bilood ee soo socota kuwaasi oo leh hal talis iyo hal dareys oo gaar ah isla markaana laga soo shaqeeyay muddo bilooyin ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo weheliyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wasiir ku-xigeenka amniga iyo qaar ka mid ah taliyaasha ciidanka qalabka sida ayaa booqasho ugu tagay ciidankaas oo u diyaarsanaa inay gutaan waajibaadkooda si caasimadda ummadda Soomaaliyeed ay u noqoto magaalo tusaale wanaagsan oo ah caalamka xagga amniga isla markaana ay u ciribtiri lahaayeen maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ee doonaya inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. ciidan loogu talagalay inay amniga magaalada wax ka qabtaan dhammaan taliyayaasha kala duwan iyo wasiirada gudoomiyaha gobolkana oo mahad celinaya wada shaqayntan ka dhaxaysa maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada iyo golaha wasiirada dhammaan xukuumadda waxa ay ka turjumaysaa dadaalka loogu jiro in la soo celiyo ammaanka magaalada oo waayahan oo dhan laga shaqeynayo. waxaan rajaynaynaa in dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay la shaqayn doonaan ciidamadana waxaan ka codsanaynaa inay aad u ilaaliyaan shacabka ay amnigooda ka shaqeynayaan. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sareeyo Guud Bashiir Axmed Jaamac ayaa ra'iisul wasaaraha warbixin ka siiyay ciidamadan iyo qaabka ay u howlgali doonaan. waxaa kan galabta diyaar ku ah 3 guuto oo ka tirsan ciidankaas oo isugu jira 4 ciidan ee qaranka ee qalabka sida ciidankaas oo maanta diyaar u ah inta halkan taagan 3 jibaarkood ay dibadda taagan yihiin intuu golahan u qaaday halkan la soo istaajiyay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ahna kursimaha wasiirka Cabdisalaan Muuse ayaa xuseen ciidamadan ay u diyaarsan yihiin in cadawga ay ka xoreeyaan magaalada Muqdisho isla markaana ay uga dhigaan magaalo nabad ah. ciidankan waxay diyaar u yihiin awaamirta inay qaataan, waxay diyaar u yihiin in shacabkooda ay la shaqeeyaan, waxay diyaar u yihiin inay cirib tiraan nimanka burcadiimeedka ah oo shacabka Soomaaliyeed gumaada. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay la shaqeyn doonaan ciidanka xasilinta Muqdisho. ciidankan waa geesiyaal runtii diyaar u ah inay xasiliyaan caasimadda isla markaana ay ka hortagaan nabadiidka u diidan shacabka Soomaaliyeed inay horumar gaaraan dawladnimo gaaraan lana tartamaan dalalka kale adduunka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa tilmaamay in ciidamadan qorshaha loo sameeyay tahay mas'uuliyadda amniga Muqdisho ay saaran tahay dhammaan ciidamada qalabka sida ay ka kooban yihiin isagoo kula dardaarmay inay yihiin kuwa shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan inay u rumeeyaan rajada horumarka. waxaa muhiim horta in magaaladu ay tiraahdo waxa yimid ciidan na daryeela na ixtiraama. xaafadaheenni waa laga dhameeyay kuwa dhagar wadayaasha ah habeenkii baa xaafadaha la socdaa ma cabsanayno haddii laakiin dadka dariiqa maraya idinka baqaan amni aad sugtaan iska daayay idinka ummadda dhibaato ku ah idinkaana leedin habaaraya. waxaa leedinka rabaa inaad isla xisaabtantaan idinkana leedinla xisaabtan. dadka Soomaaliyeed way dhibaatoobeen idinku waxaad u timaadeen inaad dhibka ka saartaan inaad dhib u keentaan leedinkama rabo. waxaan rajaynayaa markii inuu Ilaahay idinka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed horumar u horseeday. wax walba oo u baahan tihiin kala hadla taliyaashiina agabkiina raashinkiina aad ilaalisaan idinku si aad ummadda Soomaaliyeed u ilaalisaan. waxaan idin rajaynayaa guul waa idin soo noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo waa idinka soo warqabi doonaa. waa noo 9 maalmood. qaar ka mid ah ciidamada loo diyaariyay qorshahan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in Muqdisho ay ka dhigaan magaalo ammaan ah muddo yar gudahood iyagoo fulinaya amarka madaxda qaranka. 9 maalmood uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in aan wax ka qabanno magaalada Muqdisho isbedel muuqdan aan ka muujino 9 maalmood. waxaan amarkaan qaadanay ra'iisul wasaaraheena Soomaaliya uu na siiyay in aan fulino 100% ayaan ku marnay kitaab aan marna ka laaban doonin cidna aan ugu gaban doonin. maanta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u shaqeyno taasoo ku salaysan nabadgelyada
amniga magaalada muqdisho marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul ciidankan halkan lagu soo bandhigay ayaa qayb ka ah qorshaha lagu xasilinayo amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana laga soo shaqeynaya diyaarintooda muddo Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho